ahaantiinba meel walba aad caalamka naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka dhalinyarada aad u barateen saacadahan oo kale inaan hawada idinkaga soo dayno meel walba iyo waqti walba aad ku sugantihiin sida aad la socotaan barnaamijka iyagu wuxuu ka hadlaa dhalinyarada Soomaaliyeed xaaladahooda iyo sida ay ku nool yihiin barnaamijkeena sidaan mar walba idinkugu soo celcelino wuxuu marti u noqdaa meel kasta iyo wadan kasta ay ummadda Soomaaliyeed ku nooshahay oo aan ku tabayno in ay dhalinyaradu markaa dhaqdhaqaaq ku leeyihiin barnaamijka caawa wuxuu marti u yahay wadanka Netherland waxaynu ku sugannahay magaalada madaxdiisa Amsterdam si gooniya waxaan ku soo booqay hay'adda Hirda oo aan maanta xafiiskooda ku soo booqanay oo aan mar walba iyo waqti walba ku tabno in ay dhalinyarada dadka ka dhaqdhaqaaqa ee ku firfircoon ay yihiin haday ahaan ay dhanka sportiska iyo isku xirka dhalinyarada iyo wadaaga howlaha dhalinyarada u dhaxeeya waxaan ila fadhiyo oo barnaamijka caawa igala qayb qaadanaya dadka iyagu ugu firfircoon ee ugu dhiiran hay'addan laftirkeeda barnaamijka dhalinyarada ee telefishinka qaranka iyo warbaahinta qaranka aan ugu soo dhaweynayna waxay la joogtaa Adama Maxamed Faarax marway ku soo dhawaado barnaamijka dhalinyarada ee telefishinka qaranka iyo warbaahinta qaranka aan ugu soo dhaweynayna soo dhawo waa maasantahay Faadimo isku magacaabay adi aad u maasantahay maanta halka noogu imaatay wax badan aan ka aragnay telefishinka programkaagana oo dhalinyaradana aad iyo aad aan u taageernaa macnaha waana program dhalinyaradu wax badan u siyaadinaya iskuna xiraya nada tusaayo macnaha dhalinyarada iyo awoodda ay leeyihiin marka aad aan u faraxsanahay soo dhawo Faadimo aad iyo maasantahay run ahaantii farxaday ii tahay inaan imid xaruntii aad ka soo dagaaltageyseen oo halkan aan caawa ku suganahay barnaamijka dhalinyaradu marti idin yahay aad iyo maasantiin waxa kale oo isaguna dhankan iga fadhiya Cabdishakuur Xalane ku soo dhawo barnaamijka dhalinyarada iyo warbaahinta qaranka waa maasantahay Faadimo waxaan ku soo dhaweyn adiga magaalada Amsterdam khaasatan xafiiskeena aad iyo maasantahay dhanka kale waxaa isagu nala fadhiya Saalax Xasan Cumar oo isagu dhalinyarada ka shaqeeyo sportiska iyo isku xirka inta badan ka shaqeeyo oo aan barta internetka iyo meelaha ay page-ka ku leeyihiin aan si weyn uga dhex aragno ku soo dhawow barnaamijka dhalinyarada iyo telefishinka qaranka Soomaaliya aad u maasantahay Faadimo barnaamijkaaga dhalinyarada iyo TV-ga qaranka waanu ugu hambalyeynaa booqashadan ugu imaadeen magaalada Amsterdam gaar ahaan xafiiska Hirda aad ayaan u maasantahay soo dhawo marwa Faadimo ayaan ku laabanayaa in aan wax yar su'aal ka weydiiyo qaabka iyo sida aad u shaqeysaan run ahaantii wax badan ayaad sameynayseen barnaamijka maalintaad bilowdeen iyo maanta farqi intee la eg ayaa u dhaxeeya maalintaan bilowday waxay ahayd 2005 sanadkii 2014 waxaan u dabaaldegnay toban guuradii ciyaaraha Amsterdam Hirda Futsal Tournament oo ah qayb kamid ah programmada aan sameeyno oo dhalinyarada waxaan sameeynay documentary oo ka hadlaya waxyaabihii ka soo baxay macnaha waxyaabaha ka soo baxay waxa kamid ah in dhalinyaradii ay gadaal inta u noqdeen ayaga ay bilaabeen projectyaal sport ah oo ay ku gubaabeen dhalinyaradii kale inay soo noqdaan wadankii ay gadaal u tagaan taas waa mid waxa kaloo jira iyadana in dhalinyaro badan xataa sportiga galeen oo xataa qaranka u ciyaareen dhalinyaro qaranka u ciyaartay jirto oo maartay Amsterdam tournament ka soo qayb galay marka waxyaabo badan ay jira sida badan waxa maqalno waxay tahay faa'iidadu inay tahay in dad Soomaaliyeed waqti badan ay iska arkin ay isku arkaan Amsterdam tournament ay ku kulmaan maalintaasi waxay ka imaadaan meelo kala duwan Sweden ay ka imaadaan Norway ka imaadaan Denmark Belgium Holland dhexdeeda dadku waxay u noqotay kulan marka farqi weyn ayaa u dhaxeeya maalinta bilaawayna waxay iska yahay wax yar oo la garanayn oo ciyaaraha waxay ku koobnaan Holland kaliya maanta waxay gaarsiisay ilaa Europe even xataa in America la ka soo codsaday inay ka soo qaybgalaan dhalinyarada America ku degan marka dhalinyarada laftirkooda ma idin la soo xiriiraan mase idinka raadisaan qaabkeed u shaqeysaan qaabka u shaqeeyno horta waxa weeye in ciyaaraha waxaan sameynaa marka hadda September oo kale la gaaro ayaa waxaa jira website aan sameyno oo promotion ugu sameeyno ciyaaraha oo la iska soo qori karo la iska soo diiwaan gelin karo waxaa jira database waxa iska diiwaan gelinaya cidda ciyaaraysa mase cidda imaanaysa waxa iska diiwaan gelinaya kooxda waxaan iska diiwaan gelinaya coachkooda iyo tababaraha iyo tababar ku xigeenka isla markaasna magacyada xataa way soo gudbinayaan kooxda imaanaysa marka registrationkaas waxaan fiirinaa Holland oo kale dadku waxay weynay soo qoraan lacag bixiyaan registration fee ay bixiyaan waqtina waan siinaa ilaa iyo bil bar inay qoritaanka u socdo ma Europe kaliya mase adduunka kale hadda ilaa Europe aan hadda wadamada Europe ka soo qayb gala laakiin hadda sanadkan wadamo America kale dhalinyaro joogta ma soo codsatay inay ka soo qayb galaan marka
ma aha kaliya sportsna waxaan sameynaayo kale wacyigelin oo ah in maalmaha qaarkood la sameeyo workshops oo looga hadlaayo maaragtay sida dhalinyarada uga qayb qaadan lahayn dib-u-dhiska waddanka ama dhalinyarada sida uga qayb qaadan lahayn wadamada ay yimaadeen camal oo kale sidoo kale inay ka qayb xataa ka hadlaan discriminationka waxaan ku leeyahay cunsuriyadda ama shaqo la'aanta waddanka ka jirta ama experience-ga oo ay kala kulmeen meelaha markay imaadeen marka barnaamijka sportiga anaga waxaan aaminsanahay sportiga inuu yahay aalad loo isticmaali karo isku keenka dhalinyarada iyo wax gaarsiinta weliba macnaha sportigii waa fan laakiin fankaas waxaa u isticmaalaysaa inaad dhalinyaradii information siisid isla markaasna aad ku influence ku samaysid aad ku dhiirigelinaya waddanka wax ka qabtaan waalidiin halkan ku dhaqan markaan Amsterdam laftirkeeda nidhaahna ama Holland oo dhanba gaar ahaan waalidiinta ma u fududahay inay maadaama aysan luuqaduhu inta badan aysan dadku ahayn dad halkan ku dhasho oo yimid dhalinyaradoodii inay fahmaan luuqadoodii oo ay sportiskii ku wacyigeliyaan sidee ka caawisaan waalidiinta inay dhalinyaradu isfahmaan horta waddankan Holland wuxuu ku fiican yahay waddanka Holland wuxuu ku fiican yahay sida badan dhalinyarada ama yaryarka xataa ilmaha waxay ku jiraan clubs ay ku jiraan oo isheeg waxa jira football clubs athletic clubs waxaas jira oo ay ku jiraan dhalinyarada marka horeba sii diyaarin oo diyaarsan oo maaragtay haddii xataa aadan awood u lahayn inaad bixisid lacagta contributionka ah oo laga rabo sanadkii xataa waxa jira in laga caawinayo marka taa horta sida badan Soomaalida way ku jiraan oo dhalinyarada ilmaha waa la geeyaa midda aan aragnay oo jirto xitaa in waalidiintu aysan ciyaaraheena ciyaaraha anaga aan sameeyno inaysan dhalinyarada yaryar oo ka yar under 16 ama 15 aysan ku jirin waayo waalidka waxa loo baahan yahay inuu kula shaqeeyo oo ilmihii ay keenaan oo ilmihii qasas ay ku helaan tournaments iyo inay bartaan dhalinyarada kale iyo inay iyaga isbartaan hadda ka soo qaad tournamentyada aan sameeyno waa from 18 up to 30 iska dheh waa ilmaha dad waaweyn waay way isbartaan sometimes saaxiibo yihiin waxaan garanayaa 2005kii markaan bilaabay dhalinyaro afka Soomaaliga dhib ku ahaa dhalinyaro afka Soomaali maanta dhalinyaro af Soomaaliga ku gaabiyayaan ما شاء الله oo saaxiibo ah from Sweden up to Netherlands meel kasta ka imaadeen marka networkaas wuxuu keenayaa waalidku waa loo baahan yahay inay waalidku waxa loo baahan yahay in ay ilmaha markay yar yihiin ku soo xiraan meelaha tournaments Soomaalida lagu sameeynayo si ilmaha ay u helaan u arkaan dadkooda sometimes waxa arkaysaa tournamentka marka la sameeynayo ilmo yar yar oo imaanaya say proud ugu yihiin dad Soomaali isku yimid oo wax qabsaday way ku imaanaya waxa ku leeyahay dad Soomaali tournamentka sameyn karaan even xataa marmarka qaarkood waxaa noo imaada dhalinyaro oo iska dhal ah oo ama Hollandees half Soomaali ah waxay leeyihiin Soomaalina waxaan qaban kartaa ma u maleeynin marka waalidinta waxaa looga baahan inay ilmaha ay geeyaan meelaha ciyaaraha laga sameynayo meelaha la iskugu imaanayo si ilmaha ay u ogaadaan identitykooda meesha ka yimaadeen xataa mugta marka waalidka hortaas aan aad ugu gaabinaynaa haddii wax badan waxaan ku soo codsaday inaan sameeyno tournament ilmaha ah oo yaryarka kuwa yaryar ha 16 ka yar laakiin taas waxay u baahan tahay waalidka inuu ka caawiyo ilmihii markii laga keenay soo qaad hadda Netherland oo kale gobolay degan yihiin dadku mana fududo inay wada gaari wataan oo meel kasta ay ku yimaadaan kuwaas iyaga sidee u caawin kartaa horta meesha waxaa jira wax oo haddii qofka uu rabo marka wax aragtida weygeeda waa jiraan soo waalidka hadday rabaan inay keenaan one day ayaa financial xataa way awoodi karaan inay imaadaan even xataa hadday ka qayb galaan ciyaarta inay fiirsadaan ciyaarta oo dadkoodii arkaan ciyaalkoodii soo wadaan oo dee meel Soomaali iskugu imaanayso marka taasoo kale horta aad ay muhiim u tahay Netherland waa wadan yar imaanshaha iyo tareemada iyo in la soo raaca iyo in la imaado wax weyn oo dhib ma leh marka waxaan mar ku gaabinaa inay imaadaan sanadka hadda waxaad sameysaan maalin qabow marka qabowga jirana maalin baad qabataan kuleelka marka jirana baad qabataan iyadoo say dhalinyaradu intee inta ay isu yimaadaan xagee ka kala yimaadaan horta kuleelaha wuxuu uga duwan yahay qaboobaha midka kuleelaha waxa wadankan Holland kaliya waay wadankan goboladiisa ka kala yimaadaan markay kan kuleelaha wadanka Holland waay qaboobaha wadamada Yurub oo dhan way u furan yihiin sanadkii dhawaad 8 wadan aa ka soo qayb galay marka kuleelaha waxa waaye almost waxaa noo yimid 260 300 dhalinyaro ah oo ciyaaraysay ay imaadeen iyo dad fiirsanaya marka la isku daro ilaa 500 bay gaarayeen dadka joogeen ka qabobaha waa kasii badan yahay oo kasii badan yahay oo qabobaha horta xataa dadka fiirsanaya aad u badan oo imaada waayo programo kale ku jira oo entertainment iyo waxaas ku jira marka dhalinyarada aad iyo aad u xiiseeyaan way sugayaan even hadda ja already waxa bilaabay dadka inay nala soo xiraan xataa qaarkood nala soo xiraan waxaan rabaa inaan referee ka noqdo oo inuu ku caawiyo
qaar ay dhahaan waxaa rabaa inaan isqorno waxaan filayaa hadalkan kugu yara fogiyey laakiin barnaamijku mar walba wuxuu tiigsadaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo cidii dan u haysta mar walbana waan u noqonaa marti ama waa marti gelinaa in dadka dhalinyarada danta u haya barnaamijkan markaad sameynaysay dhalinyarada Soomaaliyeed inaad hawshan oo dhan u qabato maxay ahayd macnaha uga dan lahayd macnaha ugu weyn horta waxay ahayd si dhalinyarada Soomaaliyeed ay wax ugu qaban lahaayeen wadanka macnaha ta ugu weyn oo banooniga aan u bilownay waxay ahayd waxaan aragnay in dhalinyaradii aysan ku baraarugsaneyn awoodda ay leeyihiin oo wax qabad oo wadanka ay ugu qaban karaan marka banooniga wuxuu noqday inaan banoonigii markii la organisareeyo ama la sameeyo in dhalinyaradii la isku keeni karo isla markaas loo sheegi karo waxay wadanka qaban karaan marka taas horta aad ugu weyneed maadaama aniga aan ka shaqeynay NGO aan ka shaqeynay oo more aydan waxbarashada ah waxaan arkay awoodda dhalinyarada iyo dhalinyarada inay wadanka wax u qaban karaan marka waxaad door biday inaad dhalinyarada isku keento dhalinyarada isku keeno muddo intee la eg baad wadaan barnaamijkan ilaa hadda sanadkii 12 baan noqonaa sanadka hore 10 sano aan wadnay dhinaca saalka markaan fiirno oo kuwa qowbaha la qabto kan kalena 6 sano wadanka gudihiisa wax xiriir ma ku leedihiin wadanka gudihiisa wax badan ayadana laga sameeyaa horta banooniga ama sportiga wuxuu noqday hirdo hawsheeda dhan liqay hirdana macnaha ururka hirdana waa urur oo macnaha wax badan qabta oo ka badan sportiga laakiin sportiga wuxuu noqday more interesting maadaama dhalinyaro badan ay ku xiran tahay 2013kii waxaan sameynay Muqdisho ran oo kala sameeyay ran wuxuu ahaa oo orod uu ahaa oo aan ka sameynay Muqdisho aan ka sameynay waxaan kaloo sameynaa dhalinyarada laga caawiyo dharka sportiga kabaha gaalkacyo kale waxaan sameynaa dawladda xiriirkeedu waase ودولة الحمد لله waa shaqeynaa oo wasaaradda badan waa shaqeynaa laakiin wasaaradda sportiga wali xoog ma isku baanaan gelin oo ma arday si fiican iskuma shaqeyno laakiin si I think wasaaradda xataa waa wasaaradda soo baxaysa hadda oo iyada xataa u baahan caawimo u baahan NGO-yada ama dadka Soomaalida ahna dee horta in ma aragta la dhaho dawladda sugayna ma aha waa inaan anaga isgaran midda kale ururka hirda anaga hadaan nahayna waxaan bilownay 1996 aan bilownay shaqada 1996 waa iska garan kartaa dagaalkii sokeeye wuxuu socday waqti intaas uu socday marka shaqadeena waxay ahayd maadaama dawladda aysan jirin ama dawladda oo aan u shaqeynay ay jirin hawshii ay dawladaha ay qabanayeen aan qabano welina sidaan ku jirnaa anaga oo macna in hawshii aan qabano hadii aan soo shaqeyno wasaaradahana ama dawladda soo shaqeynana alxamdulillah waxa aan sameynayno waa wax wanaagsan oo aan ku caawinayo dadka Soomaaliyeed idinka ahaan hadda intaad hawsha ku jirteen qasaare intee la eg ayaa soo gaartay mise jirtaa wax aad isleedihiin alla ilaahay waad ku qaldaneedeen oo aad hadda isleedahay dib u saxa ma jiraan qasaaro badan qasaaro ma jiro oo la dhahay maanta qasaaraan gaarnay alxamdulillah maanta hirdo as organization ahaan waa urur ma aragtay Soomaaliya dhan ay wada garanayso waxa ay qabata garanayso ma aragtay qasaaro ma jirto alxamdulillah waxaan qabanay qof walba garan og walba waxaan sameynaa wax la dhaho evaluation oo ah inaan maxaa qaldamay see u sixi karnaa so anaga inta volunteers waxaan haysanaa almost dhalinyaro 30 marmar 35 gaaraysa oo dhalinyaro wada ah kuwa inta ku dhasheen kuwa hadda imaadeen oo nala wada shaqeynaya volunteer marka waxaan sameynaa markuu ciyaaraha dhamaadaan ay hal mar isku imaanaa haye see u aragtiin ciyaartii iyo wixii la sameeyay qof walba wuxuu sheegaa wixii wanaag ahaa oo dhacay iyo wixii u baahan in la bedelo waxyaabo badan oo inaan bedelno u baahan jira especially anaga Soomaali ahaan hadaan nahay xoogaa waxaa jira organization ahaan sidaan organization ma dhahay laakiin dadka Soomaalida oo ka soo qayb gala ciyaaraha oo iska xilqaameyn inay nadaafadda kala hagaajiyaan hadda marka ma isku diyaariseen qaladyadaas dhacay oo idinka dhacay ama aad barateen oo cilmiyan aad daristeen inaad wax ka qabataan ama aad bedeshaan ama dadkii idin imanaya aad la socodsiisaan waxaan rabnaaba hadii Ilaahay yiraahdo inaan horta kuula la hadlo oo aan u sameeyno awareness marka ay imaadaan bacamlo kale inaan dhahno please waxaan ka rajeynaa inaan caawisaan oo meesh kasta oo ay istaagtaan nadaafad uga tagtaan dhalinyarada ciyaaraha ka qayb galayso kale waxaan sameeynaa wax la dhaho inaan lacag ka sii qaadno sida meelaha ay dharka ku bedelanayaan oo kale haday nadiif ayna ahayn oo kale lacagtaas ma helayaan waa lagu nadiifinayo looma soo celinayo waxyaabahaas oo kale oo badan oo adiga aan hadda aan rabnaa jirto inaan sameeyno maalin dhaweyd oo aan fiirinayay barta internetka oo aad ku leedihiin waxaan arkay dhalinyarada iskugu keenteen oo aad tirahdeen hadla oo dooda dabeetana doodii waxay ka soo saareen qodobo oo dhalinyarada kaligood ay isku dayseen iskood u madax banaan dabeetana dhalinyaradu dhowr qodob bay soo saareen qodobadaas waxaa kamid ahaa dadka Soomaaliyeed wadankan markay yimaadaan waalidiinteenu
way haajiraan oo meelo kale u guurguuraan sida waxay xuseen United Kingdom oo kale dhanka kale waxay haddana iyagu isweydiinayeen dhalinyarada dhexdooda waalidiinta iyo dadka Soomaalida ah maxaa ugu wacan inaysan wadanka aysan maal gashanin ay ku nool yihiin qodobo noocaas oo kale aan dhalinyarada madaxooda ka guuxaya waa waxyaabaha ay isweydiiyaan waalidiinta inay ogaadaan u baahan idinka ahaan ma ka qaadeen warkaas oo ma diyaariseen si aad dhalinyarada iyo waalidkii aad isku fahamsiisaan mase kaydkiina kaliya ku daysateen programmadii sportka marka laga soo baxo programmo waxaan bilownay dialogue oo dhalinyaradii kuwa waliba inta ku koreen iyo kuwii hore u joogeen ay iskula hadlaayaan ay ka hadlaayaan problemada jira annaga hadda waxaan rabnaa inaan tan ay noqoto furitaan ka bacdina wixii ka soo baxa aan waalidiinta haddana keeno waxaan rabnaa dialogue hadda bilaabaday oo in la wada hadlo oo dhalinyarada wada hadlaan haddana waalidiinta inay wada hadlaan haddana waalidiinta iyo dhalinyarada inay wada hadlaan marka ma jirtaa wax wali asmaysan waad isku diyaarin way imaanaysaa mustaqbalka laakiin waxaan sameynay hadda dhowr jeer 3 jeer 4 jeer oo dhalinyaro isku imaataan sameynay qodobadii ka soo baxay dhalinyaradaas marka ma qaadeen qodobadaas waxaan rabnaa inaan mustaqbalka la wado aad bay muhiim u tahay dhalinyaradu markay wada hadlaan oo codkooda ay soo bandhigaan oo aad fursad u siisaan meelo ay ku wada hadlaan hadalka ay soo saareen inaan naga tagin run ahaantii markaan anigu ka akhrinayay page-ka aad baan ula dhacay haddana waxaan ogaaday inaanan la sii wadin marka way nagu fiicnaan lahayd insha Allah may dialogues insha Allah wuu sii soconayaa hadii ay bixaan noqdo aad ay dumaadsantahay waxaan filayaa barnaamijka dad kale nala qaadanayay su'aalahoo dhan adiga dhankaaga nu badiyay Cabdishakuur dhankaaga loo soo jeesanayaa dhalinyarada tababarahoodii baa tahay annaguna waa barnaamijkii dhalinyarada ee warbaahinta qaranka in badan baan rabnaa inaan naga warsiiso dhalinyarada aad tababarto maxaad ka tababartaa maxaas u tababartaa runtii horta Faduma ma santahay waana su'aal muhiim ah marka hore laakiin inta su'aashaas jawaabteeda aan u gelin waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan bal background yar inaan ka yarsi yani Cabdishakuur cadad xalana in yani muddo badan baa wadankan ka shaqeynay hirdana la shaqeynay systemka wadankana yani aan ka dhex shaqeynay khaasatan qaybta tarbiyada carruurta marka waxa darsan dhalinyarada hirda ku taxalluqda aan u sameynayo waa wax professional background yani aan u yara lahaa wadanka dhexdiisa aan uga dhex shaqeynay midda dhalinyaradan hadda tan Soomaaliyeed Faduma wax badan bay ka warantay barnaamijyada loo qabanayay u badan yani kubadda iyo waxyaabaha la halmaada يعني ترتيبنا ما هو بحال ودري يعني برنامج الإرادة لسلية دلنيرة مركها لوجا فايدة وحيابا مركها لوجا فايدة أنا وحكم ده سيدي دلنيرة مركها أي وطن كان أي ونولان لاين أي ولا قبصن لاين ونقول لاين ضد يعني وحكولا قيمة مركها أنا قعدت خاصة عن جهدي بدنا إنجليزي وأنا سأشة ودي جوابتي ده وحكوا سبسنايد دلنيرة runtii Soomaalida ogtahay dhulkan ka nimid iyo xaaladda dartan ku sugan yahay yani dagaal iyo colaad iyo dhibaatooyin waxyaaba dhibaatooyinka marka basically wax dhaliyana waa la yaqaan waa xanaaqa iyo xanaaqaaga aad manage garan kara weysa oo aad control kara weysa taaban marka waxaan sinay inay fiicnaan lahayd dhalinyarada ku badbaado ciyaarayaan waa taqana marka badal ciyaarayaan yani xadida loo baahan yahay yani xogaa temperament badan baa jira kuleel badan baa jira marka kuleelkaas marmarka qaarkood faruq ka baxa dhalinyarada isku horkeena waa isla dagaala marka dagaalka iyo xanaaqa iyo si meesha uga baxaan ay u noqdaan dad yani meesha waxaa loo yimid in la baashaalo marka baashaalka inaan xanaaq iyo dhib uusan soo gelin basically taasaan yani aan barnaa marka si u manage garayaan sidoo kale qofka xanaaqiisa naftirkiisa markuu banaanka joogo xataa ama bulshada ula noolaa ula dhaqmayo ama iskuul ha joogo ama meel shaqo ha joogo ama shaarica iyo meelaha oo public placeska ha joogo dabcan xanaaqa uu soo laalaabanaya qofka isma bedelay maantana markuu kula joogo weji kale mala beri kale markuu meel kale tagna weji kale mala marka run ahaantii idinka waxaad ka tababartaan in ay si saxan dhalinyaradaasi farxaddii ay ku bilowdeen inay ku kala tagaan ujeedada guud kale waa taas weeyaan aad ayaad u mahadsan tahay ma la kulantaa marka dhibaatooyin badan ma ka hor yimaadaan oo kugu adkeynaysa dhalinyaradaas aad tababaraysid dabcan basically markii tababarada trainingka noocan kale marka loo sameynayo waxaan yani su'aalaha ugu muhiimsan oo weydiiyo waxaa ka mid ah markaad kelmadda aggressionka aad maqasho maskaxdaada maxaa kusoo dhaca qofka marka wixii association oo maskaxdiisa kusoo dhacay buu sheegay wuxuu leeyahay dagaal dhiig dil daaca boob xanaaq yani waa meesha ay ka bilaabato moogta yani assumption aan kaysano ama fikrad aan kaysano xagga xanaaqa dhalinyarada marka waxa dhan ay kuu sheeg waxaad leedahay marka basically xanaaqa yani anaga bini aadan ahaan markaan fiirino wax xun buu naleeyahay laakiin haddii nature la fiiriyo ilaahi subxana watacaala wuxuu leeyahay in bini aadanka uu ka abuuray yani aaladda ugu yani quruxda badan
waxa la sheegana jirka kaliya ma aha xataa waxa maskaxdaada ku jiray dhaqankaaga dabeecadaada marka basical aggressionka ilaah baa abuuray bini aadamkana ku abuuray markii la fiiriyo ayadda waxaa la leeyahay waa wax fiican aggression laantiisna lama noolaan lahayn marka saaba dhalinyarada loogu bilaabaa loo tusaa xanaaqa inuusan ahayn wax aan jirin wax jira inuu yani xanaaq inuu xumaan karo haddaad si qalad aad u isticmaasho haddaad si fiican aad u isticmaasho wax fiican inuu noqon dadka gabi ahaanna ay isla wada wadaagaan ay yani qof walba bini aadan ay ku jirto cabshakuur anoo ku siinaya fursadii ugu dambeysay dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa aan fursad u helin inay ka soo qayb galaan galaaska aad bixinayso ama tababaradan aad bixinayso iyaga maxaad kula dardaarmi lahayd dabcan inta hadda tawadanka waan rabnaa inaan halkan ka qaadano ma way yara adag tahay wax yar laba qodob iyo runtii waxaan dhihi lahaa dhalinyaradana Soomaalida kaliya xataa ma dhalinyarada waa kuwa ugu sahlan baan qiyaasaya marka laga hadlayo aggressionka iyo dhibaatooyinka uu keenay iyo sida yani u wajahaan dagaalka waalidiinta waxaan u maleynayaa waalidiinta Soomaalida inta badan 99% qof dee rabbaani ilaahay dabcad uu siiyay degan way jirtaa laakiin waa kulkulul markaad dhalinyarada hadda waddankan joogtaan waxaan leeyahay yani barta sidaad u manage garan lahaydeen ama aad ula macaamili lahaydeen yani xanaaqiina iyo xanaaq idinkaga imaanay bulshada inteeda kale ama ha noqoto systemka waddankaad ku nooshiin ama ha noqoto waalidiinteena basically waa wax la baran karo waa wax aan haysanin sida Afrika oo kale jooga oo aan galaas maada ay tagaan ma waan soo laabanaya waxaan wax ka dhihi lahaa waalidiinta hadda 99% waxaan waalidiinta kula dardaarmayaa waalidiinta Soomaaliyeed khaasatan kuwa horan ila jooga kuwaas hadda dad iyagu dhow in yani maadada xanaaqa wax la baran karo inay tahay sidii loo manage garan lahaa waxaana simple yani haddaan tusaale yar aan ku siiyo xanaaqa 3 waxyood baa keeni kara mid waa dhalasho oo yani psychological midna qof baa yani cudur ilaahay kugu ridi karo midna waa yani xanaaqa kaa keeni kara oo yani frustration jira midna ulajeedaad leedahay kiisaska walbaad samaynaysaa yani saddexdaas haddaad og tahay yani sida loo manage garay mid walba caruurtaadii baa ka xanaajin karta odaygaadii baa ka xanaajin kara ama xaaskaagii baa ka xanaajin karta markuu kaa xanaajiyo waa inaad qiyaasi karaysid saddexda midkee waa ma xanaaq yani frustration baa qofka ku dhacay ma psychologically baa ilaahay maskaxdiisa cudur ugu rida qofka mise dan buu leeyahay ulajeeduu leeyahay annaga inta saddexdaas waa la isma weydiina marka qofka xanaaqsan baad arkaysaa waad la tirsanaysaa adna waad la qaadaysaa marka horta dadka waalidiinta maadaama carruur ay korinayaan waddankan yani runtii carruurtooda lagu kariyay sida ay xanaaqas ula dhaqmi lahaayeen waxaa fiican carruurta Soomaalida naftirkooda in yani saa loo tababaro kuwa Soomaaliya joogo aan fursadaas haysan waa su-aashaada waxaan u malaynayaa daba taalay Soomaaliya basically waa naga wada maqanta yani min alif ilaa ya the whole system carruurteena la barin oo yani min jaanib tarbiya min jaanib yani cilmiya yani iskuullada carruurta loo dhigo ama ha noqoto basical ama secondary ama jaamacadda ushii baan weli wadanaa dugsi quraanka macallimiintan ushii bay wataan يعني عنق كله جسوا كورية ما ده يعني تربية إنه وحنتا ويخل دنيا ما ده بقولك بس عشان السجال ده يعني سليم وزعيم كسب بحي تربية ده يعني أي صوص صارتي like at the same time وضن كانوا نقول عندي باتوين يعني تا وحبيس وحناق إنه أنا ما نشكرين كر قفك وحبور ربا يعني وحبا مسك حيس كسر دعيسة وحمس حيس كسر دعوة وحور ربا مركي إنه حلقة يديها حلقة ده قال مرة والبما يعني مركي أي نقطة إن حناق وقاضو وحد وإن تفيديسا مع حناق كاكين طبعا حناق وحكاكين الدنتي والله هيد وادن جار قف واحد حكرتي وحي بعد ويله اللي سوما فرستريشن بقى وداعي مركا تا مركا اي تمادو وين مركا اسئله سدا ترى اوكي هذا هو حناقي communication wise اي ما سورتو بيصدرتا انا وحي ان ربي ان كغار مركا حيالad kala ma haysta meesha marka aad gacanta aad ka qaadi lahayd ina marka xeelad kale iyo tab kale marka aad raadiso waxaan filayaa waa maada aad u tiro badan oo aan ka bogan karin aad ayaad dhammaadsan tahay inaad fursadaas maaragtay maanta na siiso adaan ku soo jeesanayaa Saalax Xasan Cumar barnaamijka dhalinyarada saan ku sheegay ku soo dhawow maadada sportska ama kubadda cagta ama isku soo daroogabi ahaan carruurta iyo dhalinyarada barnaamijkan aad u diyaariseen maxaad kala kulantay maxaa idin hirgalay qaabkee u shaqaysaan dhalinyarada kale iyagu ku dhaqan Yurub maxaad ugu baaqaysaa faadama aad u mahadsan tahay horta barnaamijka hirday dhinaca isboortiga kaliya ma aha mid kubadda cagta oo kaliya ku saman wuu fara badan yahay qaybo kale oo kala gedisan uu leeyahay isboortiga ku salaysan haddii ay noqoto qaybaha ciyaaraha fudud oo sanadka ugu dambeeya lagu soo daray haddii ay noqoto qaybta ciyaaraha basketballka oo weliba dhinaca dumarka ah oo gabdhaha lagu dhiirigeliyo futsalka oo ah mid lagu ciyaaray garoon dadan oo
salax ah iyo midda footballka caadiga ah oo xilliga samarka aanu ciyaaro marka qeybahaas oo kala gedisan oo dhan dhalinyaro fara badan ay ka qayb gala runtii dhalinyarada waxyaabo fara badan oo ay ka faa'iidaan baa jira annaga ahaanna waxyaabo fara badan oo aan ka faa'iidnaa jirta marka labada dhinacba waxaa la isku qabaa dano oo muhiim ah oo isku keenaysa danaha annaga aan leenahay danaha dhalinyarada ay leeyihiin haddii aan sii ambaqaado dhalinyarada waxa ay ka faa'iidaan waxay tahay waxaa jirta marka la ciyaarayo kala ciyaaraha winterka qaboobaha futsalka waa laba qayb oo ciyaaraha ah mid oo futsal ah iyo mid basketball ah marka kooxaha ka qayb galaya waxay ka imaadaan wadamo kala gedisan oo qaaradda Yurub ah waa dareemi kartaa koox ka timid Norway oo luqad kale ku hadasha iyo koox ka timid Ingiriiska oo luqad English ku hadasha markay meel isugu yimaadaan waxay ku qasban yihiin inay isku fahmayaan inay tahay luqadii afka Soomaaliga muhiimadda ugu weyn waxay tahay dhalinyarada inay sameeyaan isdhexgal inay ku hadlaan luqadooda ee afka hooyo afka Soomaaliga marka af Soomaali ku hadlaan dhalinyaradu intay isla joogaan af Soomaali ku hadlaan waa muhiimadda ugu weyn marka dhalinyarada laga faa'iiday in la isugu keeno inay afkooda Soomaali ku hadlaan inay arkaan dhaqankoodii Soomaaliga marka ma waxa jirto maada aad ugu wacaysan marka ma mikrofoonka intaad qaadataan tira naga daayay luqadaha kale af Soomaali ku hadla mise iyaga isla soo doonto runtii way ku qasban yihiin inay ku hadlaan afka Soomaaliga waayo wiilka ka yimid Finland wiilka ka yimid Norway iyo midka ka yimaaday Sweden oo aad dareemi karto inay tahay luqado aad u kala gedisan danta waxay ku qasbaysaa ninka aanan aqoonin xataa inuu isku dayo inuu ku hadlo afka Soomaaliga marka sanadkan markuu isku dayo waxa macquul sanadka soo socda asigoo af Soomaaliga si fiican u yaqaana inuu yimaado marka beeska hirda dhinaca sportiga ma aha oo kaliya marka sports in la isku yimaado la ciyaaro oo kaliya runtii anaga waxaan u dhigi karaa inay tahay school ay dhalinyarada wali aan dhaqankoodii afkoodii Soomaaliga oo in badan lagu hadlay aysan arkin ay saddexdaas maalmood ka faa'iidaan marka uga ilaalisan Ingiriiska runtii ma u baahna inaan anaga kala dhaxgalno aan dhahno af English ku hadlan ama Sweden ku hadlan dhalinyarada iyaga isku baahan waxay isugu yimaadeen waa sport waxa dareemi kartaa marka qof walba imaanaya dhalinyaro kasta imaanaysa waxa ka dhacsan meeshan inay Soomaali tahay inay Soomaali isugu timid waxay arkayaan waalidiin fara badan waxay arkayaan dad horay oo sportiga Soomaali magac ku lahaayo caana marka waalidiintii dadkii waaweynaa iyo dadkii yaryar danta waxay isku qasbaysaa inay hal meel isugu yimaadaan halkaas meel oo ah afkii hooyo dhaqankii hooyo marka waxaan dhihi karnaa markii imanayaan ay ku weyn tahay Soomaalinimada aad ugu weyn tahay because waxay og yihiin meeshay u socdaan inay tahay meel barnaamij Soomaaliya inay tahay meel dhalinyaro Soomaali isugu imaanayso inay tahay meel ay ka soo faa'iidayaan taariikh sporti oo Soomaaliya ay ku soo arkayaan dad horay magac ugu lahaa sportiga marka faa'iido weyn oo runtii aan dareemi karna ayaa meesha ku jirta maraan fiirinay barta internetka aad ku leedahay ama page-kiina aan fiirinay bishii la soo dhaafay waxaad sameyseen ciyaaro waxaad magacaawdeen dhalinyaro badan oo meesha ku jiray oo aan page-ka ka akhrinay dhalinyaradaas ku guuleysatay oo ciyaarta quruxda badan soo bandhigay marka laga tago inaad koob siisaan si kale ma u caawisaan oo ma daba gashaan oo dhiirinaan kale ma siisaan dhalinyarada waxay ka yimaadaan magaalooyin kala gedisan iyo wadamo kala gedisan muhiimadda u imaanayaanna ma aha oo kaliya horta inay ciyaaraan hay-adda hirdana waa inay tustaa taalantigooda meesha uu gaarsiisan yahay iyaguna ay arkaan taalantigooda meesha uu gaarsiisan yahay waxaa loo tusaa waa dareemi kartaa dhalinyaro jooga xaafadiisa meesha kaliya ku ciyaara qof Soomaali aanan daawanaynin qof Soomaali aanan u sacbinaynin iyo markuu yimaado meel Soomaali ay daawanayso Soomaalina ay u sacbinayso muhiimadda u kala leedahay runtii waa dareemi kartaa marka qofka aad istirahdaan dadka uu ka horeeya oo aad buu idin cajibiyo ilaan waad garanaysaan sportska qofka ku fiican qofka kale dadka dhalinyaradaas oo kaleeto wadankii uu ka yimid isaga xiriir ma la sameeysan si horumar gooni oo ka siyaadaysan oo il gooni loogu fiiriyo taama ka caawisan runtii xiriir fara badan ayaa jira emailada laga hayaa ee dhalinyarada ka soo qayb gala telefoonadooda laga hayaa marka markay guuleystaan waxa la siinayo ma aha qofkan uu guuleystay oo kaliya laakiin waa wax lagu dhiirigelinayo inuu meeshaas ka sii ambaqaado si bari ka maalin uu ku sii fikiro maanta waxa ku guuleystay in ka badan ayaa ku guuleysan kartaa in bari gaarto mise hiigsa marka muhiimadda inta ah cunuga abaalmarinta la siiyo adduunka inuu heer gaaro ma gaarsiisan inuu heer gaaro waayo waxaa jira dhalinyaro fara badan oo ciyaaraha hirda ka soo qayb gala aan ka soo qaadna hadda wiil sanadkan markaan qabaneen ciyaaraha orodada ku guuleystay orodka 1500 oo kale
waddankan ayuu ka sameeyaa inuu ciyaaro oo training ayuu sameeyaa mustaqbalkiisana wuxuu hiigsanayaa marka inuu noqdo sida Mo Farah oo kale Cabdinagay oo kale waddankan ka ciyaara marka dhalinyaro kale iyagana sportiga ku jira dhinaca ciyaaraha fudud oo kale hadda Cabdinagay markaan ka soo qabno kale waa dadkii nagu dhiirigeliyay inaan bilaabno ciyaaraha orodka oo kale marka ay noqoto dhinaca kubadda cagta oo kale waxaa jira dhalinyaro fara badan oo ciyaaraha hirda ka ciyaara oo ka qayb galay national teamka Soomaaliya ka ciyaaray qarankii u ciyaaray qaarkood ka soo noqday goalkeeper runtii annagu waxaan u fududeynay inay imaadaan ay soo bandhigaan awoodooda ay markaa jaanis ku helaan in la doorto selection lagu sameeyo ay ka qayb galaan national teamkii Soomaaliya waa tahay idil ahaantiin intii barnaamijka la socotay daawanaysa ama intuu dhaafay barta internetka ayaad kala socon kartaan warbaahinta qaranka ay ku leedahay dhanka kale sida la socotay barnaamijkeena gabagaba ayuu ku siman yahay waxaan ka codsanayaa Doctoressa Faadumo fursada ugu dambaysa warbaahinta qaranka waliba barnaamijka dhalinyarada mar walba iyo had walba wuxuu dhiirigeliyaa dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaasna wuxuu u ogolaadaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin inay markooda aaladda ay isticmaalaan warbaahinta qaranka adigoo ka faa'iideysanaya caawada iskale dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya maxaad ku ugu dardaarmay marka kood horta waxaan rabaa inaan xuso meeshaan ku xuso Yusuf oo ah one of the ambassadors ama dadka aad iyo aad loola shaqeeya ciyaaraha Amsterdam Futsal Tournament kana mid aha aasaasyaashii ciyaaraha ilaa ay haddana UK naga caawiya horta waxaan rabaa inaan xuso oo dhaho maartay alxamdulillah dad badan oo Soomaaliyeed oo waxaa jira aad iyo aad raba inay noo caawiyaan mar labaad waxaan rabaa inaan dhaho dhalinyarada Soomaaliyeed idinka waxaad tihiin mustaqbalka waddanka ama ha joogaan waddanka gudihiisa ama ha joogaan waddanka dibadiisa in macnaha inta la isku xirmo oo network la samaysto wax la qabto way bilaabatay hadda laakiin in intaas laga sii xoojiyo oo sportigana uu noqdo macnaha aalad la isticmaalo waayo sportiga waxaad arkaysaa inuu yahay inuusan qabiil lahayn inuusan wax kala lahayn oo la isku urursado isla markaa markii sportiga la isla ciyaarayna la iswada fahmaa iyadoo language lagu wada hadlayo aysan jirin marka universal language lagu hadlayo luqad la isla wada yaqaano marka waxaan leeyahay sportiga waa in la xoojiyaa ay badato wada shaqaynta hay-adaha iyo macnaha dhalinyarada iyo meediyaha si loo helo waxa loo baahan yahay waalidiinta Soomaaliyeed ayagana waxaan ku macnaha aan leeyahay waa in maaragtay dhalinyarada yaryarka ah sportiga lagu xiraa oo la geeyaa clubyada cunuga hadii la arko inuu talent leeyahay oo kalena lagu dadaalo in la soo saaro talentigiisa oo maaragtay ilmaha hadda anaga wadamadan oo kale cunuga markuu clubka ciyaaro oo la arko cunuga inuu talent yahay hadii waalid uusan jirin gacanta qabanayo oo meeshii ku haboon geynayo cunugaas meeshaas ku dhamaanayo marka waalidiintana waxaan dhihi lahaa inay ilmaha ku dadaalaan in la geeyo clubyada oo si fiican ma aragtay loo socdo awoodooda isla markaas lagu dadaalo luqadda Soomaaliga waa luqad aad u muhiim ah waayo luqadeena Soomaaliga haday luntana waxa lumaya identitygeena ama isfahankeena lumaya oo generation kasto imaadana waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan filayaa fursadiina inaad ka faa'iideysateen warbaahinta qaranka barnaamijku mar walba ayuu ballan qaadaa ummadda Soomaaliyeed caalamka meel walba ka joogana waxaan u sheegaynaa oo diyaar u nahay in aan markiina idinkeena warbaahinta qaranka idinkana sidan quruxda badan ee aad noo soo dhaweyseen dhamaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin Doctoressa Faadumo si weyn ayaan kugu mahadcelinayaa labadiinana sidoo kale aad ayaad u mahadsantihiin inaad barnaamijka ka soo adiga mada Faadumo waa tahay intaynu dib u kulmayno barnaamijkan mid lamid ah anigoo Faadumo Faanda waxaan idinkaga tagayaa horumarkaagu waa horumarkeena wassalaamu calaykum waraxmatullaahi Nambalkaygu waa baaqe daftiisu waa guule
تضبيط تبان دبيع سقاشة يشد مقعد ومرا أبو بكر عبد الله مرا أبو بكر عبد الله كان أنت لبعض جبناها بسينا وعافيرنا تعرف تقول الدكتور كمان شيء عذر محمد في بايه وما يتضمن بين هذا اليشان تعرف تقول الدكتور عذر محمد في بايه نلعب زوجة نلعب زوجة صديق أقول أفنو ترتك الدكتورة قبلها وحاول بينا ترتك قبلها كوعاء هيرك كوات رمضان بقولهم بدر كان أنت سبحان مريم نور موسى تفضل يسبح لبيت سيادة يلمو مريم نور موسى كان أنت سبحان مريم حسن عشي تفضل يا سبع إذا كنت نلعب على الكورة مريم حسن سودو كنا عم بحد أرض كلامنا بقولهم بتيرا دلكا أمال محمد بشير صوتون يلا بديني الوقت اللي سمع يكون بي أمال فليتفضل تعرف السدحات كم مقعيس لكم مقعامو عبد الرحمن إبراهيم عبد الوحيد طبعاً يشن بلحظة يشن عبد الرحمن إبراهيم وحيد قال أنت السدحات يوم سميي شن يلا ما كان بلحظة يشن قال أنت لبعض لماذا بقول في ويرشا وحامي لنا نكلا يرادون حسين محي الدين محمد حسين محي الدين محمد حسين ياري ولاعب تدار ايو وسوكر ايو وربا هاني لقود ايو ونهانتي محموجي كارتي وحونا سمعي ساعات لما تني اخر تعرفت كوارث لما بقولوا من دين وحاكوا لك عبد الله محمد حسين أيوة مقعدير يا وهديه غرب وكسر غير قريت الطباب وحوسه يمكن لنا كان قدسن وحوسه ما يلا ما تاني أفر نبيع كنتني سيدين لما بقولوا من دين تعرفت كوارث يجري مستعمل في عنا ما شاء الله يعني مع العبد عبد تعرفت السدحات wiilasha sideeda boqol oo mitir waxaan u yeerayaa halyeeyga kaalinta saddexaad soo galay Ibrahim Ahmed Aadan wuxuu ku sameeyay laba daqiiqo dhibic 50 waxaan u yeeraynaa kaalinta labaad sideeda boqol oo mitir wiilasha
الله بركوله وعكو سمايي هل نبيع كنتن يا سقال وحاني يرينا إنك كوكولا استي سيدة بغلها متر ويلشا محمد حسن حسين جندي وحو سبيه ساعات سكوتي عن وانا دحين جندي سنة هندبو جندي وحالنا نايس واطلع سنتها بينا كاكا سيديري وحو سمايي هل دقيقة نبيع كنتن اللي نبيع كنتن maanta farxad weyn noo ah munaasabadii 26 June 6 June annagana dhinaceena ka xuseen haddaan nahay hikra iyo bahda atleetikada waxaana leenahay sanad guuro wacan waxaa kaloo haddaan warbixin guud idinka siiyo barnaamijkan waxaa noo soo habeeyey ama soo diyaariyey walaalaheen hirda oo mar walbaba diyaar u ah inay Soomaali kaabaan gobolada iyo degmooyinka iyo magaalo madaxda haddaan nahay xiriirka Soomaaliyeed ciyaaraha fudud waxaan hambalyo gaar ah u direynaa xafiiska Muqdisho iyo xafiiska yaala hirda waxaan kaloo hadda idinkaga cad waana farxad weyn maanta ii ah maadaama hirda ay madax ka tahay Faadmo Faarax oo qof haween ah intan waxaa fadhiyo haween tiro badan marka waxay tusaynaa ragga baryahan dambe inaan iska celin doono insha Allah waxaan soo dhaweynayaa si uu warbixin kooban nooga siiyo ama ay warbixin kooban nooga siiso oo nala joogta maanta marti nooga ah gudoomiyaha gobolka haweenka Jawaahir joogta oo runtii aniga aan ka mid ahay ka soo qayb galay oo saaxiibaday ah runtii dal joogtana aan dhihi karno macnaha inaan wax wada wadaagno kulley waa la isriixriixayaa baasha laakiin inay nagu soo wareegtaan rajaynayna oo anagu aan noqono muwaadiniinta saxda taas waa kaftankii hay-adda hirdo ma aha markii ugu horreyso aan ka soo qayb galo munaasabadan lagu weyneynayo runtiina 22 sano qolo walba meel u adeegsanaysa isboortiga runtii farxadna anaga la gelinayso ka haween ahaan waxaan rabaa inaan hambaliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed hirdana aan ugu hambaliyeeyo dhammaan gobolada dalka meel walba ay ka shaqeeyaan iyo maaragtay meesha ay xarumaha ku leeyihiin waxaan leeyahay hirda ku dayda dadka Soomaaliyeed maaragtay jecel isbedelka iyo horumarka run ahaantiina aniga ka haween ahaan way farxad gelinaysaa ka gobolka Banaadir ahaanna waxay ii tahay farxad way magaaladan waxay ahayd magaaladii 22 sano caqabada ay ka taagnayd burburka uu ka dhacay qabiilka la isku dilay qabiil wax waa ku gaari weynay bal dhanka isboortiga aan u leexano aan horumarka iyo isbedelka u leexano dawlad jacaylkana aan isbarno intaasaan anigu ugu soo jeedinaa ummadda Soomaaliyeed munaasabadan waxaan u dirayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya codkooda waxaan leeyahay hambaliyo munaasabada 26 Juun 27 Juun walaalaheen reer Jabuuti iyo 1 Luulyo oo aan wada sugayno